عطرا نتيه صفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا ليال meel kaste oo aad joogtaan iyo waqti kaste oo aad joogtaanba, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. insha allahu tacaala waxaan jeclaystay insha allah inaan maanta idinla wadaago maansan yar oo la yidhaahdo haysbidin, oo runtii aan islehay waxa weeyaan waxay macno u noqon kartaa aayaddii qur-aanka falaa tuzaku anfusakum huwa aclamu biman ittaqa. ilaahi subxaanahu watacaala owlaha waxa weeyaan hays ammaanina ruuxa waxa weeye taqwada leh ee ilaahay u dhow isagaa yaqaanee. haysbidin maansadan yar waa maanso kooban, waaqic aynu nool nahay uunbay sawiraysaa, aniga iyo idinkana kolley way ina wada khusaysaa maansadu. haysbidin waxaan sameeyey kadib markii aan arkay waxa weeyaan dhaqamo badan oo laga yaabo inaan aniguna leehay idinkuna aada leedihiin bulshada dhexdeeda kusoo kordhay. maansi dhibal horta in liis baraarujiyo malaha waxa weeyaan way wanaagsanaan lahayd oo arrintaas wax laga yidhaahdo. haysbidin anigoo qorshahaygu yahay subaxyada ka mid a inaan gabay awoodaha ilaahay ka waramaya inaan sameeyo, ayaa waxaan arkay waxa weeyaan qoraallo walaalo kala duwan ay soo geliyeen bogogooga internetka. deedna taas ayaa waxa weeyaan fikradaydii oo dhan bedeshay. itijaahii aan ku socday ee ahaa inaan gabay sameeyo awoodaha ilaahay baa ka waramaya oo waxa weeyaan iga bedelay, oo waxa weeyaan inaan haysbidin sameeyo igu kalifay. haysbidin 3 maalmood ka badan ma jiro. inaan sii dheereeyo oo waxa weeyaan aan hagaajiyo oo sii qurqurxiyana waxa weeyaan waxay igala qurux badnaatay inaan intii yare ugu horeysayba idiin soo gudbiyo. waxaan filayaa ujeedada uun inay iyo madmuunka aan uga jeeday iyo hadday idin soo gaadho qurqurxinteeda kale iyo waxa weeyaan weyse jabkeedu aniga ayay waxa weeyaan ii soo noqonaysaa. haysbidin awal waxaynu naqaanay ruux is-ammaana qariibna ma ahayn, waxa weeyaan ruux kasta way ka suurta gashaa, ibni aadanka ayaana iska ammaanta jecel. ruux dadka weerara oo waxa weeyaan inta xun ee dadku ay leeyihiin uun la tusay oo salbi ah, ruuxaasna waa caadiyeedna wax lala yaabo ma ahayn, bulsho kasta dhexdeedna uu jiraa. hadday naga suurtagal tahay aniga iyo idinkana. laakiin waxaa qariib runtii ila noqday in la kulmiyo hal mar inuu ruuxu isagoo is-ammaanaya fi nafsi alwaqt haddana uu dadka kale weerarayo. mathalan yacni anigu ruux multazimaan ahay oo diinta ku wanaagsan, laakiin waxaan ka yaabay dadkii sidai beryahan diinta uga tegeen. hadal noocaas oo kale ah, dadkii buu weeraraya fi nafsi alwaqti, isaga iltizaamkiisii iyo diintiisiina uu ku faanaya. gabadhii oo kale inay tiraahdo waxa weeyaan xijaabka anigu waxa weeyaan si wanaagsan ayaan u gashadaa sidii allahna faray, laakiin xijaabyada beryahan dambe soo baxay ee gabdhuhu ay xidhanayaan aad baan ula yaabana. iyadna waxa weeyaan waa is-ammaaniya weerar hal mar meel lagu jamciyey. axaadiista la jamciyaa baan maqli jirnay, waa jamci. hadda waxa weeyaan waa faankii baa jamci yeeshay. waxaad arkaysaa ruuxii isagoo le waxa weye qur-aanka anigu markaan akhrinayo waxaan u akhriyaa si qurux badan oo wanaagsan baan u akhriyaa, laakiin dadkan markay qur-aanka akhriyaanba dambe iyo bur waxay sheegayaanba aan la gerinayn. waa maxay waxaan qur-aan miya? yacni waxyaabahaasoo dhan waxa weeyaan waa ammaan aad ammaanayso iyo weerarkii dadka oo hal mar aad kulmisay. ka tusaale qaado markaas intaas iyo wixii ka badan. dadkan waxa weeyaan labis ma yaqaanaan, may aniga iga bartaana may feeriyaan san u labisanahay oo kale. tamaam. wax weey anigu salaada marka soo safkan ku tukada. waa maxay dadkan salaada markastaba safka shanaad iyo
waxa weeyaan ragcadda kusoo gaadhaya cibaado miyaa waxaas waxaa kuu suurtagelayda inaad ka hadasho dhaliilaha jira waad ka hadli kartay waxaa kale oo aad ku fahmi kartay inkastoo ina wanaagsaneynba inaad tiraahdo anu salaada masaajidka si fiican baan ugu tukadaa jamaacada laakiin almusiiba kulli almusiiba waxa weeye in aad kulmisay waxa weeyaan weerarkii dadka aad ku haysay iyo wanaagga adigu aad sheeganaysay qof qalbi wanaagsan oo nadiifaan ahay acuudu billah dadkan labada qalbi leh adiga waxa weeyaan yaa ku taskiyey yaa wanaagaaga kuu qiray waxa keligaabad iska camiratay oo aragtidaadii annagoo dadkii kale markaadna warartaan una waan kugu khilaafayna halkaas waxa weeyaan ijmaaca halkaas ayuu ku dumayaa markaas almuhim ilaahay subxaanahu watacaala ceebteena ha asturo nin soomaaliyeed ba wuxuu yidhi gunnimada dadka kale gobnimadeyda ka raadin maayo dadka kale inaan xumeeyo oon liido ka raadin maayo inaan anigu waxa weeyaan aan magacayga kor u qaado oo markaa dadka weeraraysa ujeeddadu ay tahay dadka dhan dhulka ku jeed si keligaa unaad usoo hadho anigunbaa xaasil ah ay u noqoto ilaahi subxaana watacaala ceebteena dhammaanteenba subxaana watacaala ha asturo walmaasadan yar baan kor marinaha isbidin waxa uu yidhi waa adigan xukumayee dadka wada xumeeyee waa adigan xukumayee dadka wada xumeeyee isxariiray keliye adigoon xanaaqayn ama aan xad dhaafayn bal inaad xalaal tahay xurmaya caddayn kara adigan xumeeye dadkao dhan way xun yihiin yidhi ee keligaana wanaag sheegtay adigoon xanaaqayn ama aan xad dhaafayn bal inaad xalaal tahay xurmaya caddayn kara adaaba wanaagsane wiilkii wanaagsanaa iyo gabadhii wanaagsaneedo xurmayaa caddayn kara wanaagaaga ayaa caddayn kara tolow yaa xogtaadiyo xabadkaaga waxa tuban laba xaashiyood iyo xuruuf aanan buurnayn xagga sare mar soo dhiga tolow yaana kaa bara oo waxa weeyaan intan anagu aan kaa naqaana wanaagga ma ahane waxyaabaha hoose ee akhtaada iyo xumaantaada meel hoose fadhida alluun baa ku yaqaanay yaa tolow kor noo soo yardhiga aan akhrisane wax badan ma rabno waxaan u baahanay laba xaashiyadoo keliya laba waraaqood baan u baahanay laba bage baan u baahanay bis oo sariiradaada ka mid ah calaaniyad ahayn sirtaada hoose ka mid ah wallaahi ruux kasta haddii laga ogaan lahaa laba xaashiyadoo keliya oo sirta dadka uu ka qarsaday keligii ogyahee ah dhibaato fara badan baa ka dhici lahayd bal maxaad u malaynaysaa haddii lagu wada ogaadana marka ruux kasta ilaahay baa goonidiisa u asturay tolow yaa xogtaadiiyo xabadkaaga waxaa jira laba xaashiyood iyo xuruuf aanan buurnayn xagga sare mar soo dhiga aan daalacane ruux gabay xilkiisoo isxisaabinaynbaa marka xaabka lagu daro xagashada bilaabee dadka wada xajiimee xeelad maaha gobonnimo ruux marka waxa weye bulshadu soo hadal qaadi weydo ee magaciisa lasoo qaadi waayo ee mudnaantiisa la sheegi waayo ee meel hoose la iska dhigay cidna maamuusi weydo ruux saas loo nacay oo meel lagu tuuray ayaa marka uu bulshadii iska dhex arki waayo akhyaarta bulshada iyo inteeda wanaagsan xagxagta laanno dadka la xagxaganaya waxaad ogaataa waa dad jira haddii uuna ruux jirahayn cidna may soo hadal qaadeen jiritaankiisa waxaa muujinaya inay bulshadii qaybo ka mida ku mashquulshan tahay inay doqmihii iyo waxa weeyaan iyo geesiyadiiba ay ku mashquulsan yihiin inay ceebihiisa ka sheekeeyaan marka laakiin ruuxa isagu dadka ku mashquulsan ruux aan lagu mashquulin waaye waa ruux aan lasoo hadal qaadin waa ruux aan tirsaneyn bulshada dhexdeeda waa ruux xaabka lagu daray wey marka markii bulshadii dhinac iskaga xidhay ee wanaag iyo xumaantiisa cudbo isku mashquulin weyday ilaa xataa xumaantaada in lagu mashquulo jiritaankaaga qayb ka mida muujinaysa marka labada midna lagu mashquuli waayo markaas ayuu bilaabayaa ruuxii inuu bulshadii kale weeraro ruux gabay xilkiisaoo isxisaabinaynba marka xaabka lagu daro xagashada bilaabee dadka wada xajiimee xeelad maaha gobonnimo gobonnimadu tilmaami mayso inaad tiraahdo dadkao dhan baa xun waxaas dee cid kaa akhrisanaysa ma jirto dadkao dhan ma xumaan karaan ummaddan waxa weeyaan ummadda nebi maxamed waa macsuum ummaddu fardi macsuum uma aha laakiin ka umma waa macsuuma ummadoo dhan baa khaldantay ma noqonayso ummaddu si guud waa macsuuma weyaan khaladna iskuma raacdo marka ummaddu waa sidan waa gef weyn hebel waa sidan iyo hebel waa sidan laakiin inaad tirahdo waxa weye dadku waa sidan oo dadku horta sidan maxay u sameeyaan waa dadkii oo dhan ayaad weeraraysa markaad dadka weerarayso
adigu waxaad isla joogtaa banaankaad isla joogtaa oo waxa weeyaan ruuxii ammaanaa ayaad isku haysataa waa musiibo ruux gabay xilkiisa oo isxisaabinayn baa marka xaabka lagu daro xagashada bilaabee dadka wada xajiimee xeelad maaha gobonnimo dadku maaha xayraan sida kuu muuqata dadkan inta boqolka magacaad u kala bixisay dadku maaha xayraan iyo wada xaqiir uun sida uu xiskaa maray adiguna xareed iyo uma tihid xulkoodii xikmad qaar la siiyo xilka kaasitaa jira xasilooni ruux loo xushmad loo qiraa jira dad xabaasha jiifo xidigaha sarreeyiyo carshi laga xusaa jira mid isxiiqinayno kaa xariifsan baa jira bulshada intaasoo nooc ayaa bulshada ka mid ah dadku maaha xayraan iyo wada xaqiir uun sida adigu isleedahay sida uu xiskaa maray adiguna xareed iyo uma tihid xulkoodii intaad bulshadii oo dhan kef saarto adigana dhinac kale isa saarto tira waa xaaraamiyiin dhinacana saarto waa dad xun adigana dhinac kale inaad isa saarto adiguna xareed iyo uma tihid xulkoogii xikmad qaar la siiyo xilka kaasitaa jira intaasoo dooda kaa xikmad badan oo kaa garasho badan oo kaa wanaagsan baa jirta xasilooni ruux loo xushmad loo qiraa jira dad kaa degan oo kaa waayo aragsan oo kaa xikmad badan baa jira dad xabaasha jiifo xidigaha sarreeyiyo carshi laga xusaa jira masaakiin fara badan oo waxa weeye 10 sano iyo 100 sano ka hor godka galay oo kaa magac dheer baa jira oo xagga sare laga jecel yahay jira oo carshiga ka xusan baa jira oo ilaahay jecel yahay baa jira adigoo nool oo waxa weeyaan na soo eegayo halkan dadka weerarayana aad ka liidata dadka yaa ku yaqaan markaas yani ruux dhintay oo kaa magac dheer baa jira wata culimadeenoo dhan ibnu taymiya ibnu hebel baa la dhaha waa la yaqaan magaciisa saddexni meesha ku dhashay dad noole adduunka aan lasoo hadal qaadinna waa daf nasalullah asalaam marka dadkan aad weerarayso waxaa ka mid a dad haddii xitaa god ay ku jiri lahaayeen kaa magac dheer oo carshiga ilaahay laga jecel yahay dad xabaasha jiifo xidigaha sarreeyiyo carshi laga xusaa jira mid isxiiqinayno kaa xariifsan baa jira dad aan iyagu iswaalaynba oo inay magac iyo waxa weeyaan iyo maamuus kasbadaan aan bulshada dhexdeeda isku daalinayn ayaa jira laakiin haddana kaa xariifsan oo kaa wanaagsan oo kaa sharaf badan oo kaa qiimo badan baa jira marka bimujarad inaad adigu aad ku wareertay ama aad ku xiiqday inaad dadka indhahooga aad isku soo jeediso oo aad sugto jiritaankaaga laanna qof shikisan baa tahayba markan aad ku mashquulayso dadka inaad isku soo jeediso ee weerarka dadka aad weerarayso aad rabto inaad waxa weeye indhihii dadka aad soo jeediso markaa laftigeeda ayaad ka shakisan tahay jiritaankaagii oo waxaa tahay waxa weeyaan ruux kalsooni aan haynin haddaba ha xanibin wanaagee bal xasuusta soo celi garashada soo celi istaji dib u fikir kabacdi ayaad garan doontaa bulshada meeshaad kaga jirto ina aadan xiinkiyo xalladaynta faanka waa xamaasadiise xog kastoo xan kastoon ogsoonahay xaqa kii aada leedahay kaa xayuubin maaye xaysiiskayga da kolley ina aadan xalladayn iyo faanka waa dabcigiisa waa xamaasad keentayo wax dhaqana una ka tegi karin inkastoo sidaas tahay haddana inkastood ruuxaa weerarka badan tahay inkastood ruuxaa dhibta badan tahay xog kastoon haddana ogsoonahay ama xan kastoon ogsoonahay inkastoon warar fara badan oo dhibaatadaada iyo dabashaanimadaada iyo doqonnimadaada ka warramaya aan ogahay haddana xaqa kii aada leedahay kaa xayuubin maaye xaysiiskayga da adigoo si kasta oo xun oo 100 war lagaa soo warinayo oo masiibooyin lagaa soo sheegayo haddana meesha aad ku wanaagsan tahay kulli kaa xayuubin maayo haddii aad si kasta oo xuntood geesi tahay waxaan leenahay ninkaas xumaan fara badan iyo dhibba dadku ku sheegay laakiin waa geesi walxaqu yuqaal saas baan leeyahay inta yaraad leedahay cidna kaa xayuubin mayso waxba xoog ha ku raadinayn markas yaa xaqa kii aad leedahay kaa xayuubin maaye xaysiiskayga da adeer duco qabe khayr allah ku siiye inta aad leedahayna waa lagu qiri waxba xoog ha ku raadinin wixii aanad lahaynna heli maysid wey xaajada aad mudan tahay xujadaada tii culus xirfadaada gaarka cidna kaama xadaysee dadka kale xuquuqdood si aan kuugu helo xaal adna xeeritoodii xaajada aad mudan tahay iyo xujadaada tii culus meesha aad ku gar leedahay iyo meesha aad ku wanaagsan tahay
iyo halka aad dadka kaga saxan tahayba xirfadaada gaarka aqoontaada gaarka aad leedahay cidna kaama xadayso cidna kaa qaadan mayso hebelkaas uun baa tahay injineerkaas uun baa ahaa tabiibkaan uun baa ahaan abwaankaan uun baa ahaan aqoonyahankaas uun baa ahaan cidna kuma xadayso laakiin aad mar kastaba kusoo celceliso aqoonyahankii baan ahay abwaankii Soomaaliyeed ee la yaqaanay baan ahay waxaan ahay hebelkii sida aha inaad kusoo celceliso wax lama baahno dadku way ku og yihiin cidna kaama xadayso dadka kale xuquuqdood si aan kuugu helo xal adna xeeritoodu haddaba si aad meesha aad ku wanaagsan tahay aan kuugu qiro oo aan u qadariyo oo aan u qiimeeyo in waxa tahay ashagna adna dadka kale waxooga qir engineer baa tahay Sooma ina engineer aan ku nidhaahna rabtaa Sooma dadka kale waxyaabaha kala bartay kaaga wanaagsan u qir waxay kaaga wanaagsan yihiin adigana kolkaas waxa weeye waxa ka dhalan inay engineer ku yiraahdaan hadda dabiib caafimaad oo cid waxa weeyaan doctor ku tiraahdo aad weeyday mushkiladu dadka ma ayna adiga weey dadka kale waxooga adigana u qir si ay taada kuugu qiraan haddii aad dabiib tahay oo aad rabto ka waran inaad abwaankii ereyga ku qabsato haddii aad abwaan tahay oo waxa weeyaan ragga caafimaadka barta ku haysato fanigooda ka waran adna abwaannimadaada lagu qiri maayo marka si aan kuugu helo xal adna xeeritooda adiguna tan dadka kale u garo ruux walba markuu ruuxa kale fanigiisa ku qadariyo isna kiisa waa lagu qadarinaya adigoo bartay cilmu alxadiith oo cilmu alqiraa'aadka laakiin dadka dhexdooda waxa weeyaan lagaaga qadariyo ama cilmu waxa weeyaan fiqiga ama waxa weeyaan dadka dhexdooda lagaaga qadarinayo luqada haddii aad kaad ugu wanaagsan tahay uu yahay cilmu alqiraa'aat oo ruux kale takhasuskiisu fiqi kaliya yahay uu fadhiyo ruuxa fiqiga bartay wixii fiqiga isaga weydiiyay adigana kolkaas oo kuu qiraya ala tool fanigaaga laakiin haddaad kiisiina ku haysato od kan ku haysato adigana kaad sidata cidna kuu qirmayso weeye dadka kale xuquuqdood si aan kuugu helo xaal adna xeeritoodu xujadaad mudan tahay xajadaad mudan tahay xujadaada tii culus xirfadaada gaartaa cidna kaama xadaysee dadka kale xuquuqdood si aan kuugu helo xaal adna xeeritoodu xaya beeshay dunidii anuun baa ka xaasila xilli kaliya taas maya dadkii oo dhan inaad tiraahdo adduunkan adduun xishood beele adduun wareeray weeye adigu halkaa waad ka hadhanta anuun baa ka xaasila baa tiri anuun baa wanaagsan laakiin inta xilli kaliya taas maya kaa yeeli maayo inaad radigaas xilli kaliya aad wada sii dayso laakiin xillina dadka radi adduunkii uu xishood beelay maashi waa wax la gartay laakiin ha igu hoos darin oo waxa weeyaan kaar kale inay hoos wadato kaa socon mayso adduunkiiba xishood beelay waan kaa dhegaysanaya adduunkii xishood beelay waan kula arkaa laakiin anu baa ka xaasila deegada haddii aad rabto inaad aduu is ammaanto ruux wanaagsan baan ahay gadhe laakiin isla markaa ha odhan adduunkii baa wareeray mushkilada waxaan diidanahay inkastoo tan kaleba madmuum tahay iyo wax aan fiicnayn oo laga wacan yahay taa laakiin almusiiba kullu musiiba musiibada waxa weeye almusiibatu salcaa aan ka digayna baasha bidaarta leh waxa weeyaan inaad hal mar kulmiso inaad tiraahdo waxa weeyaan xayaa beeshay dunidii anuu baa ka xaasila xilli kaliya taas maya kaa diiday ummadani xashiishka xaragada anaa ku leh xilli kaliya taas maya dadkan maba yaqaanaan balabiska anaa unbaa waxa weeyaan ku wanaagsan laa hal mar kaa yeeli maayo laakiin haddaad aayar adoo miir qabo intaad ii timaado odhan lahayd war dadku labiskiibaa ka khaldan baryahan waan kaa dhagaysanaya haddaad ii timaado ad tiraahdo war labiskani aad baan ugu wanaagsanay sa loo habaysana waan kaa yeelaya laakiin hal mar waxa weeyaan inaad kaar kale ku xoqato calaa xisaabi alaakhariin ma yanfacsh socon mayso ummadani xashiishka xaragada anaa ku leh xilli keliya taas maya xaqdi baa dadkii dilay xaqdi baa dadkii dilay anu waan ka xalanahay xilli kaliya taas maya xaqdi baa dadkii dilay haddaad tiraahdo maashi waan kaa dhagaysan waa weerar iyadba iyo tuhmo aan loo baahnayn oo daliil u baahan xaqdi baa dadkii dilay daliil bay u baahanta laakiin waa waxaan dhagaysan karo anu haddana waxaad kusoo daba dartay anu waan ka xalanahay anigu xiqdigaasi waan ka caafimaad qabaa taas daliil bay yadna u baahantay waana faan aad kulmisay hal mar weerarkii dadka iyo ammaantaadii baad kulmisay xilli keliya taas maya dhagaysan maayo markaas xabad waan kaaga dhagaysanaya iyadoo waxa weeyaan aan wanaagsanayn xabad baan kaaga dhagaysanaya markaan kuleeyahay ma qirsanin ina waxa weeyaan ammaantii iyo caydii dadka
laakiin yani waa wax ka sokeeyo oo la fahmi karo. waxaa tidhi haddana anu baa xijaabane xukunkii ilaahay maryihii la xoorbadi xilli keliya taas maya. intaad iscajabisood xijaabkaagii iyo gacmaha alaabihii la gashanayay iyo niqaabkii iyo okiyaalahaagii weynaa baad fiirisay, markaad saa isku daawatay ayaad mabsuud intaad dhacdaa tiri wallahi saa u fiicanahay, dadku xijaabkii waa laga tegay, bal fiiri anagu sidaan u haysto gacmihii iyo wejigii iyo okiyaalaha aan sito meel iga muuqata ma jirto. dhag waa kii aayadda qur-aanku ay sheegtay baan anigu dabaqay, aayadda qur-aanka socotaad imoodaysa haddaad aragtid. laakiin dadkan kale maryaha meelaha la iska soo gadanayaayo ay xaaga weerar fi nafsi lwaqti ammaan naftaadii ah ma yanfacsh, iyaduna socon mayso. is ammaan waa wax liita, laakiin waa waxaan dhegeysan karo, laanna waa dhaqankii iyo waxa weeyaan wax bini aadamku caan iskaga yahay. gabadh fiican baan hayo muxajaba oo cafiifa oo barakaysan oo maasha allah oo teexteexaysa oo asxaabadii iyo taabiciyaadkii baan dhaqanka uga eeghayo, wax fiican maaha, waan kaa dhegeysan karaa. laakiin markaad hawlaha ay wado haddaad calaa xisaabi alaakhariin ee bilowdo ma soconayso, ma yanfacsh. xilli keliya taas ma inaad dadka weerarta. anu baa xijaabane xukunkii ilaahay maryihii la xoorbadi xilli keliya taas maya. waxaa tidhi haddana xifdigaygu waa heer, xifdigaygu waa heer, fahankoogu xidid male xilli keliya taas maya. war xifdigaygu waa xifdi qawi ah oo xididaadada ku taagan, aad baan wax u qabtaa. laakiin dadkan kale waa maxay marka wax loo sheegay way kala daadanaysaa un wax ma qabanayaan, miya weel dabala miya dadkan horta may waalayihin, hal beej hadda ay sheegto dhag anigu haddan xifdinayaaba xilli keliya taas maya. taasna waa calaa xisaabi alaakhiriin baad rabtaa inaad ku guurto, jooji baan ku leenahay taasna. waayahay 10 jeer xajkaan tegay dadku xoolahoogii xaramkaba kamay tegin xilli keliya taas maya. war dadkan waxa weeyaan gacantood go'day iyo bakhayl meedhan weeyaan waxa qararaya adduunka iyagoo haysta cid xajka aad ay arki maysta. bal aniga ifeeri intaasoo jeer baan cumraystaa sanadkii, intaasoo jeer baan xajiyaa, waxa weeyaan weli 5 jeer baan xajiyey, 10 jeer inaan xajiyeyna weligeen waan rabaa. ina hebeliya intaasoo tukaan beelayan xajkana ma aadaan, waa calaa xisaabi alaakhiriin baad ku guuraysaa, ma yanfacsh. taasna lama rabo inaad markaad is ammaanayso iyadoo ammaantu ayna kolka hore waxa weeyaan musallam ahayn, haddana inaad dadkii kalena kusii guurto, gudnimadii dadka kale aad gobnimo ka raadinaysaa, markaas musiibaa tahay. wuxuu yidhi haddana siduu xaakimkeen faray, waa gebagabadii, siduu xaakimkeen faray nafta lama xariiro dadka siduu xaakimkeen faray nafta lama xariiro xadka lagama sii rido. dhanka kale xanjaadkiiyo lama jara kawdee ku xasliya qaadkeed. naftaada xadkana lagama saaro, laismana bahdilo dhulka laisma dhigo, labada u dhexe wasat. kadalika jacalnaakum ummatan wasatan, dhexdhexaadkaas ahow, hawshaada halkaas ka wado, hana isbahdilina dhulka isku jiidin oo dhulka isku jiid laguma lahi. wanaagaaga iyo khayrkaaga intaad ummadda kaga fiican tahay ku tar, xadkaagana ha isdhaafinin oo ha iska dhaadhicinin wax aan jirin iyo waxaanad lahayn. ha rumaysanin dadka kale waxay kaa odhanayaan, haddaad aaminto musiibo wey, geesad la soo baxaysaa berritoole waxaad leedahay sheekh layma dhihin. waa maxay edab darana wiilasha yaryar, hebel un bay leeyihiin magaca igu soo taagayaan, sheekh hebel ima dhahayaan, edab male. kolka dambe adaa rumaysanaya sida dadku kugu celcelinaya inaad sheekh tahay. marka sheekh abubakar iyo sheekh cumar bin khitaaba maynu maqleen adoo qarnigii 21aad nool oo 5 sano ama 4 sano jaamacad soo bartay ama 2 kitaab raacday, sheekhnimada inaad xoog ku raadiso waa xaajo kale weey. marka inaad wixii dadku ka odhanayda aaminto waxay keenaysaa kolka dambe inaad ka xumaato maalintii ka tagaan. waxaad aamintay inaad abwaan tahay, markaad aamintay inaad abwaan tahay naftaada iska dhaadhaso, ruux kastoo abwaanku odhan waayo waad ka xanaaqaysaa marka dambe. laakiin ruux kolka horeba haddaad abwaannimada aanad ogolan iska dhexdhexaad tahay oo waxa weeyaan daacada ummaddeedana dareen ku socotaa aad tahay, marka lagu yidhaahdana bini aadan baa tahay hoosta ka yar farxaysaa. marka lagu odhan waayena waxaad leedahay lagaama xoogina kolka horeba mad aaminsaneyn weeyaan. waa la fahmay ayaan filayaa. marka waxaan leenahay ha isbahdilina, baaraka allahu fiik, oo noloshaada iyo waxa weeyaan sharaftaada iyo haybadaada meeshay ku jirto naftaada dhig, isqiimee, xadkeedana ha dhaafin. maasadii ha isbedin. intaas ayay kusoo gabagaboobaysaa. hadal badan iyo
kaftan baan idinka dhex geliyay hal mar baan ayaan idin akhrinayaa waa hal daqiiqo insha Allah wuxuu yidhi waadigan xukumayee dadka wada xumeeyee isxariiray keliye adigoon xanaaqayn ama aan xad dhaafayn bal inaad xalaal tahay xurmaya caddayn kara talow yaa xogtaadiyo xabadkaaga waxa tuban laba xaashiyood iyo xuruuf aanan buurnayn xagga sare mar soo dhiga ruux gabay xilkiisoo isxisaabinayn baa marka xaabka lagu daro xagashada bilaabee dadka wada xajiimee xeelad maaha gobonnimo dadku maaha xayraan iyo wada xaqiir uun sida uu xiskaa maray adiguna xareed iyo uma tihid xulkoodii xikmad ruux la siiyo xilka kaasitaa jira xasilooni ruux loo xushmad loo qiraa jira dad xabaasha jiifoo xidigaha sarreesiyo cashi laga xusaa jira mid isxiiqinayno kaa xariifsan baa jira ha xanibin wanaagee bal xasuusta soo celi ina aadan xiinkiyo xalladaynta faankaa waa xamaasadiise xan kastoon ogsoonahay xaqa kii aad leedahay kaa xayuubin maayay xaysiiskayga da xaajada aad mudan tahay xujadaada tee culus xirfadaada gaarka cidna kaama xadaysa ee dadka kale xuquuqdood si aan kuugu helo xaal adna xeeritoodu xaya beeshay dunidii anuunbaa ka xaasila xilli keliya taas maya ummadani xashiishka xaragada anaa ku leh xilli keliya taas maya xiqdi baa dadkii dilay anu waan ka xalanahay xilli keliya taas maya anuunbaa xijaabane xukunkii ilaahay maryihii la xoorbadi xilli keliya taas maya xifdigaygu waa heer fahankoogu xidid male xilli keliya taas maya 10 jeer xajkaan tegay dadku xoolahoogii xaramkaba kamay tegin xilli keliya taas maya siduu xaakimkeen faray nafta lama xariiro xadka lagama sii rido dhanka kale xanjaadkiyo lama jaraxa kawdee ku xasiliya qaadkeed dumtum fi ricaayat illaahi wa xifdih wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu